arrintan maantaan meeshaan iskugu imaadnay waa ciddii qoyskii godobtii abkaygeedii ciddii aska dhashay ogaas waayo kambeen ma aha waa midnimada ciddi ugu xoog badan kambeenna waa ku jira arrintan aan loo qaadanin inay wax kala tahay annaga midnimada faygana qaybaan ka nahay qoys ahaanna waxay gooni noo quseeyay ay ahayn waxaan ka hadlaynay ciddii ku midowday boroseska faygana dhexdan ugu jirnaa wax dhib kale oo jira ma laha marka waxaan doonaynaa talka kala iyo waxaan kale inaan annaga ay dhib noo arkin laakiin waxaa codsi naga ah muddo badan ayaan kursigan aan damacnay fataxa nagala maray mar labaad haddana nagala soo tagay markii saddexaadaan joognaa qabiilkana waxaa fiican wax isku midooba inay garta la fiiriyo shayga garta haddii loo noqdo la dhaha shalay intay wax ka halaabeen la dhaha wax ilaahay untu iska fow imaada maaha laakiin haddaan shalay wax intay ka halaabeen aan la dhihin xoogahu qabiilka dhexdiisa xajiinaa soo geli waxaan u qaybaynaa haddii aan qoyski nahay wax hadda godob oo weyn oon suubinne inay jirin 69 iyo barga dhexdoodu waxbaan dhisayna dhismada iidaheed in nagula abaaliya kursigu nagula siiya waxaan u qaybaynaa qabiil ahaan dadku boogereynana qaf ahaanna qofka aan wadno anigoonba gooni u wadi karno meel geena aan geyn karin bahda aas ka dhashay ee talweynaha wajeer aan wax aan ka rabno qofka asaga ahay inuu maanta as qof ninka aan wax la rabnay oo ogaad sheekh inaan qof maanta booq qaba anas ahayn inuu nin karti u leh hogaaminta countigan aasiya anaga waxaa la yidhaha cabdilaahi cumar xasan maanta waxaa meeshaan iskugu imaaday bahdi reer macalgeedi oo ka tirsan fayweyne bahda maqsadka iskugu imaadeen waxaa weeye ina ay gorfeeyaan siyaasaddii 2027 qoyskii waxaa gorfeynta siyaasadda ka soo bilaabay 2017 ilaa 27 ilaa waqtiga aan joogno intii process iyo inta heero la soo maray ciidis ay ku fogaatay oo aad u gorfeeyeen waxay isweydiiyeen 2017 qoyska markii qof ka tirsan oo ugaas sheekh la soo qaaday 7 bilood ka bacdi haddana inaas isbedel laas dhacay oo ninkaas ay kursiga la qaaday qoysku waxaa isweydiiyay ilaa hadda inay majiibti sababta taas ay ku dhacday weli majiibta ay helin haddana ay faaweyne ka sugaan majiibtaas iyada sidoo majiibtaas lagu keeni karana ay tahay mudnaanta koobaad ama priority hadba sidiis afka qalad u aqaan in la siin doono ninka cidda wadata oo candidate-ka u ah xaga jagada gafananimo markii cidda ay saad u gorfaysay midnimadii waan isku raacay candidate-ki 2017 meel looga dhacay oo faaweyne ay ka tageen markii 7 sano qarash ka baxay gabar iyo wiil ay ordayeen in ninka asaga ay fay ay cidda ka codsatay fay inaas ninka asaga mudnaanta koobaad asi oo la soo qaado waxaa lagu gunaanaday iyada oo cidda ay kulman tahay midnimadii la muujiyey ina ninkii cidda ay wadatay liskugu taga si midnimo ah lagu dhiso waxaa kaloo lagu heshiiyey haddii waqtigii faadhigtidii fayga ay baxdo haddii asal la soo qaado iyo haddii la soo qaadinba haddana cidda ay haddana shir labaad ay subisay haddii asal la soo qaado waabtii fay ka cusriin haddii asal la soo qaadi waayana la gorfayn kow loo noqdo iyada oon ka tix raacayna siyaasadda haddaan ka horo ama canaadkii candidate-ka asaga la soo mari iyada oo fay sababaynin ina haddana in fadhigta cidda iideed haddii qofka la soo saaray inay ku raacay in kala haddana in laisku soo noqdo
يا هذنا قلنك الوارق سيدا أوجد لكن waxaan qaybaynaa oo cid maanta magi iswarsatay gabar iyo wiil dhalinyaro culummo iyo caama ay iswarsatay inay fayweyna asmudnaanta koobaad siin doono laba su'aalood laga sugaa markaan anaga fayga suweyna iyadoo ay hoos ka riiqsan tahay mudnaanta fayga inay muqaddasta laakiin haas aatee markii xaq la suubiyo oo cadaalad lagu takrifala ayay midnimadana hoos laga riiqi karaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سرور عبد الله إبراهيم maanta waxaan meeshaan iskugu imaanay kulankayna reem calingeedi waxaan iskugu imaanay inaan cidaayna horta aan midoowna oo wixii tafaariqay iyo wixii hadal qaba aan ku saxno dabadeedna siyaasigii shalay laga wada daatay yaan u taaganahay oo sidii iideed oo xumaan kale gooni oo fay ka baxsanaan ahayn oo ninba cunugiisaas wataa wiilkayna aan sida u wadano beesha maxamed fay waxaan ka dalbanaynaa wiilala wada taagan laakiin anaka gar ilaahay aan ku taaganahay xaq baan u leenahay ninkan nin maanta cilad laga sheegana oo cilad leh ma aha waa nin abaarihi iyo ilmihiis asaga ka soo bixi agoonnimo oo maxay ahaydey jaamacada ay yihiin oo barkood ay Canada u taagan yihiin waa nin abaar magii la jooga kula jira waa nin markii intaanoo mashiimo asure masquulaha dadku u dhisay agoomaha koriya oo indhaha dadku u fiiqa baytumal intaas ka keenay America ka xaq kuwa Kenya Afrika nala jooga abaalkiis asaga horta bilaa ugaas waxa waaye akhris lamba wanaskay sheekhnimo lamba wanaskay gargaar waa kan waa ka badan walaalayaal wax lagu diido oo ognahay malaha aniga hadda aan ka hor meeshaan waxaan dhahay beertaana hadda barga fadhino waxaan ka dhahay anaka wadada hadda sareelo ku go'ay in 100 fuundi loo keeno Soomaa wadada nagu gooynina maanta wala dhacay waa dhownaay wili talka maxamed faayaan dhaxda ugu jirnaa wadada haddana ha nagu celinina xaq baan u leenahay wax nooga xaqli malaha noo fiiriya sidii haddaan cilad wiilkayna qaba adduunka weynaa laga sheegi lahay laakiin ninkii shalay adiga ku garab galay oo agoontaada kori oo maxay ahaydey raashinkaada oo gafanaas 7 bilood nin ku wareejisay oo sida adeerkay aan ugu wareejina bedelkaas fay kala tagay lahay hay fay magii la wada dhacay oo Nairobi isku tagay ninkii isu keenay waa asaga warninkan waxaan dhahay ninkan amaas ba awliye ilaahay oo isu miday kii shalay la diriray kii isgafsanayeen kii haqiisa duugay oo wiilkayga iiga heer anagoo naagta tusbax noo gelinay isu imaada midnimadii ka daran ninka barger lagu bedeli lahay Axmed Jiir kartida Axmed Jiir inaas waliba ka dheereeyay ninkan waa faayo Allah ku tuso qofka fiican Allah ku tuso